EIGRP gan hadda configure garaynayna kanaan ka soo bilaabaya router 1 baan ka soo bilaabaynaa router 1 keena aan ka soo bilowno deetana waxa leenahay router EIGRP administrative distance maaha kani ee waxa weeye autonomous numberkeenu wuxuu u dhaxaynayaa 65500 ilaa iyo 65535 intaas u dhaxaynaya marka by default 100 aad iska qaado deetana waxaad leedahay network-yada kugu xidhan tabteenu u advertise gareynaynay ribka unbaasna loo sameynayaa waxaa igu xidhan 192.168.1.0 enter waxaa kale igu xidhan 10.1.1.0 ayaa igu xidhan bes intaas no auto summary waan odhan karnaa auto summary waxa weeyaan wuxuu sheegaa si automatically ha igu summarize gareynin router 2-gaygana kaalay okay halkaa horta waxbaan sameynayaa right click baan leeyahay capture baan odhanayaa waxaan capture garaynayaa daytada xogta dhex maraysa halkaas ayaan rabaa inaan ogaado waxay tahay mar dhow imika waxaan arkaynaa inuu communication jiro inuu rib configure garaysmay uu leeyahay hello network waa kan broadcast-keenu soo sheegnay waa kan wuxuu leeyahay hello network router-ka loo yaqaano ka training center domainkiisu yahay ayaa xogta loo dirayaa kabacdi markaasi keenan markaan galno aan configure garayno waxa isbedelaan eegno communication-ka samaysmi doona okay deetana waxaan leenahay halkeen joognaa global configuration mode waxaynu odhanaynaa router EIGRP 100 the network-yada ku xidhan isaga 3 network baa ku xidhan 10 ka dambaysiinayaa waayo waxaan rabaa inaan xagga ka eego software-kan inaan xagga wax ka eegaan rabaa mar dhow isaga waan deynayaa mar dhow waxbaan halkan ka fiirinayaa 10 ka waan deynayaa marka waxaan ka bilaabayaa 20.1.1.0 okay waxaa kaloon advertise garaynayaa 192.168.2.0 iyo 10.1.1.1 okay 10.1.1 yaanan odhan no network 10.1.1 ka saar hale network 10.1.1.0 waayo interface-ka network-gan rabaa inaan advertise gareeyo hadda waxaa dhaca fiiri halkan okay waxa communication baa samaysmay okay aan stop gareeyo marka hore stop garee waayo isaanu dhaqdhaqaaq fara badan iga samaynin waxaa samaysmay wuxuu advertisement-kii awal ahaan jiray 224 hadda waxaa samaysmaya 192.168.10.1.1 ayaa la hadlaya 10.1.2.2 deetana update baa dhacay hello waa la isweydaarsaday update-kii hallowgii hore ee ayuu acknowledge ka sameeyey tanku dabeetana update baa dhacay acknowledgement cusub baa dhacay communication system baa saa dhacay ilaa iyo live noqonayo ongoing live kabacdi si kala haddaanu idhaahdo marka communication kastoo loo baahdo isagana meelahana laga sii dhex galaa hadda more about kelimayno nayo waxbaa iga qaldan isna meelahana laga sii dhex galaa okay sidaan usoo yardurkiyo sidaan usoo durkino okay hagana soo durkino okay communication-ku waa kan source address-ka iyo destination address-ku iyo EIGRP routing protocol oo Cisco leedahay ayaan meesha ku arkaynaa waa kan EIGRP inuu yahay in update la isweydaarsaday communication system sax inuu dhacay autonomous number 100-na 192.168.1 inuu advertise gareeyay iyo information-kii oo dhan now aan aada markaasi router-kayga saddexaad isagana aan configure gareeyo router-keena saddexaad waxaan leenahay isagana router EIGRP 100 laba network baa ku xidhan 20.1.1.0 iyo waxa ku xidhan markiiba uu soo dhacayaa saad arkaysid iyo 3.0 waxaa samaysmay sidaan arkayno root baa samaysmay adjacency cusub baa samaysmay marka haddaan idhaahno show IP root waxaan arkaynaa EIGRP inuu yahay D number 1 inuu yaqaano 3 network
192.168.1 iyo .2 inuu yaqaano iyo inuu yaqaano 10 inuu saddexdaaba yaqaano. Okay, marka haddaan idhaahdo being routerka ugu shisheeye gaadh 1.100 waa inuu gaadha, waa reachable. PC-yada configurationkiisa idinkaan idin dhaafaya. Marka interfacekiisa ayaan gaadhay. Interfacekaasi waxaan kasoo biingareeyay routerkan, waxaan idhi waxaad gaadhaa interfaceka 100ka gaadh ayaan ku idhi. Okay, PC-yada haddaynu u baahno PC-gan inuu inoo configure garaysnaa waan malaynayaa. Bing oo inoo configure garaysay waa kan xogtiisii, uma baahnin, xogtii hore inoogu jirta. 192.168.3.100 gaadh ayaan odhanayaa, gaadhayaa. laakiin PC-ga ma gaadhayo, PC-ga IP address-kan maan siin weli. haddaan idhaahdo oo PC-go 10 gaadh ma gaadhayo, markaa PC-ga hortaan hal IP address ku tuuro. aan idhaahdo IP 192.168.3.10 oo gateway-giisu yahay 192.168.3.100. now waa mandatory inuu soo gaadho. hadda markii dhowd waa gaadhi waaye, waayo IP address kuma saarnayn. iminka laakiin waa inuu gaadho. hadduu gaadhi waayo waa inaan cilada ogaano. you have seen that it is reachable. waa adiga arkay inay reachable yahay, waa adiga arkay hadda inuu reachable yahay. marka mid kasta saas isku gaadhi karaa. haddaan router 1-kayga tago oon idhaahdo show IP route, waxaan arkayaa isna inuu yaqaano 1 inuu yaqaano, oo aan nadweegaa dhexe router 1 iyo router 2 iyo 3 isku xidhaya, iyo labada nadweeg ee 192.168.3.0 iyo .3.2.0 inuu yaqaano. kan iyo kan dhinacaniga xiga inuu yaqaano. marka nadweegaygii waa reachable. haddaan u baahano show IP route EIGRP baad odhanaysaa shortcut si aad u aragtid inta routingka kugu jirta. Okay, autonomous numberkii 90 waa kan halkan ku arkaysid. autonomous number 90 mid kasta marar kale aan ka hadli doona. xisaabtan kale waa xisaab calculation kale, mar dambaan ka hadli doonaa haddii Ilaahay idhaahdo. wabilaahi tawfiiq.